tani waa deegaanka Yumbis waxaa ka jira abaaro baasan oo saameeyay dadka iyo duunyaba. Abaaraha ee ka jira deegaanka ayaa saameeyay in ay u dhintaan kumanaan xoolo ah, halka qaar ka mid ah deegaanka Faafi ay una u qaxeen xeryaha qaxootiga Dadaab. Ulmaawdiinka xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa waxay ula soo gaareen hal booyad oo biyo ah tuulada Yumbis. Haddaba waa kuwan dadka deegaanka ay walaalo ay ugu mahadceliyeen biyaha ay soo gaarsiiyeen. waxay dhibaatoona haasato laba maalmood oo hadda ka bacbari imaanta way ka dambe hadii nala soo gaaro adduunyada ta dalka ku kor jirto sawirkaad ku qaadi kartaa kuwa kale way fadhiyaan oo u dhinteen ilaahay magantiisa tahay hadana nala soo gaarin dad badan baa bari yaa nafta ka bixi hadana halahan maanta idin noo keenay dhibaato badan baa ka dhacay 3 sano aan meeshan sana aan heli aan ahaan hadana biyaantaas ka cabno bal qaxootiga waxay ama kuuraal baa laga soo bilaabay afkaan u gashanay hadana aanay mashiinta naga go'day oo mar labaad ay naga go'day oo mar saddexaad ay naga go'day markan hooyadaydo 100 jirto shalay aan ku tuuray xagar dheer ilmahaygi meesha aan ku daadgoray hadda aniga laba islaan wada bilcaan oo qabay kalima shabaan taaganahay marka loodi waxay goysay ay laadahay loyalka aniga weel mareer ay saaran yihiin ilmihii egan aabay xanuun bilaabay loodi soo goosimaysa darkan korkiisa inta baqti oo taalo saag orba meesha soo taagnay ka dhac iska baqti orjimi marka dhibaatadaas anaasha iyadoo marka horena wadanka oo abaara ay ka jireen oo dhinacyaha dhan iskaga imaaday wajeed ladira ilaa masaraani meelo badan dadkii ka soo abaarsaday oo meeshan joogay haddana motorkii ka sii halaabay marka iyadoo aad loo rafaasan yahay ayaa maanta culimada ka imaatay ifo iyo Dadaab ayaa maanta gurmad biyo degdeg ah soo gaarsiiyeen u nimid dad baahan oo hayo oo dunyada iyo dadku isku baahi ay yihiin runtii dhibaatada badan baa ka muuqatay haddaan nahay xeryaha qaxootiga waxaan go'aansanay inaan tallaabo ka qaadno karaankanaga ah dadka oon ku hayo iyo baahida intii karaankanaga waana soo gaarsiinay runtii booyada biyaha ayaan keennay waxaan la kulannay meel dadka iyo dunyadu isku si ay u baahan yihiin oo oonkooda Mukhtaar Xasan Ibrahim, telefishinka caalamiga GTN TV, xeryaha qaxootiga Dadaab.